wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan oo wehelinaya badhasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Ahmed iyo maamulaha kastanka magaalada Berbera Maxamed Cabdi Gurxan agaasimaha guud ee diinta waqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Suleymaan Siciid Cali ayaa habeennimadii xalay ha kormeer iyo indheedheen ku tagay takada magaalada Berbera mas'uuliyiintan ayaa waxay ka warbixiyeen badeecada faraha badan ee waqtigan ka soo degaysay takada magaalada Berbera iyo xoolihi arafada waqtigan ka dhoofaya takada magaalada Berbera mas'uuliyiintan hadalka u kala dambeeyay waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan isugu nimcaawa waa dekadii Berbera oo badeecada ay degayso oo xoolaha ay rarmayaan oo containerskaasi ay socdaan oo badeecadii weynayda oo uu dhaxmarayo xilliga iyadoo waajibaadkeeda shaqo gudanaysa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu nahay mas'uuliyiinta u xil saaran in aanu ka soo saarno cashuurta waajibka ah ee cashuurta sharciga ah ee kala duwan containerska iyo general cargo-ga iyo sidoo kale xoolaha iyo badeecada kale ee ka dhoofaysa dekada Berbera ilaahay maadi shaqada si wanaagsan bay u socotaa halkan imka markab kale aan taaganahay waxa la yiraahdaa waxa la CMA baa la leeyahay Kailas wuxuu siday 500 oo container buu siday ku dhawaad laba habeen buu ayuu ku dhamaaday faaruqiisana inta leeg baa 500 laga rooyin ku dhawaaya la saarayay waa dhamaad caawa DP World waxa weeye intaasoo dekedood bay gacanta ku haysaa oo waa maalgashi caalami ah weey marna waxaan odhanaynaa aqoonsi baa la doondoonaya marna maalgashiyaashii caalamiga inoo yimid waddankeennii baan leenahay mar rabno arrintaa bal aan laga digtoonaado waxaan leenahay waa looga fiican yahay rag waaweyn oo intay telefishinka is hortaagaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qarankaba ku eedeeya wuxuuna geyin ka arkaya si fiican bay u shaqaynaysaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka ka shaqeeya dekada waa dad runtii muwaadiniina waayo waqtiga qolaylka dowr haday tahay ilaa caawa shaqaynaya waxa weeyaan wax ilaahay loogu mahadnaqo annaguna waxaan leenahay aad baa u mahadsantiin ilaahayda ay ka jisaaysiin shaqooyinka qaar lama eego un lacag laakiinse waxa la eegaa wadaninimo muuqata runtii meesha ka muuqata dadku waa waqti adag waa dhibaato waa kulayl inta yara socotaaba dhididaysa dadka haddana u bareeray inay habeen iyo maalin sidaa u taagnaadaan runtii aad iyo aad baan u bogaadinaya aadna waan ugu mahadnaqaynaa Sadiq Arab Suleymaan telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Berbera.